ma rumaysan lahayd in hal nin uu ku khasbay malaayiin qof inay guryahooda ku dhex xidhmaan daaqadaha xirtaan oo ay seexdaan iyagoo qoryo gacanta ku haysta, kadib markii uu bilaabay inuu guryaha dadka u soo dhaco saqdii dhexe isagoo aan kala soocayn carruur, waayeel, rag iyo dumar, uuna kaga tagayo calaamado shaydaan? Sidee baa dilaagan wejigiisa lagu aqoonsaday kadib markii uu ka tagay hal raad oo keliya? Maxaase dhacay markii dadweynaha cadhaysan ay jidka ku qabteen isagoo baxsanaya? Richard Ramirez wuxuu ku dhashay gobolka Texas ee dalka Maraykanka, nolosha carruurnimadiisuna waxay ahayd mid ka buuxda masiibo iyo xanuun. Aabbihiis wuxuu ahaa nin aad u cadho badan oo mar kasta garaaci jiray, taas oo Richard ku riday cabsi iyo godoon. Balse qofka noloshiisa gebi ahaanba beddelay wuxuu ahaa ina adeerkii oo la odhan jiray Michael. Michael wuxuu ahaa askari ka soo laabtay dagaallo culus, wuxuuna Richard u sheegi jiray sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan siday dadka u dili jireen, isagoo tusi jiray sawirro dhab ah oo dad la gowracay ah. Tani waxay maskaxda Richard ku beertay in dhiigga iyo dilku ay yihiin wax iska caadi ah. Markii uu Richard weynaaday, wuxuu bilaabay inuu isticmaalo maandooriye aad u xooggan, wuxuuna u soo guuray gobolka California, isagoo habeenkii dhex lugayn jiray jidadka madow, isagoo raadinaya meel uu sharkiisa ka bilaabo. Sannadku markuu ahaa 1984, dilaaga Richard wuxuu fuliyey dilkiisii ugu horreeyey ee si dhab ah loogu aqoonsaday. Wuxuu gurigeeda ugu galay haweenay 79 sano jir ah oo la odhan jiray Jenny Fink. Richard ma uusan ahayn dilaa caadi ah oo raaca halqaab, balse wuxuu ahaa mid aad u naxariis daran. Wuxuu Jenny u dilay si arxan darro ah isagoo isticmaalaya mindi, jidhkeedana u gogoy si naxdin leh. Wixii maalintaas ka dambeeyey, Richard wuxuu dareemay awood shaydaan, wuxuuna bilaabay inuu habeen kasta dhex mushaaxo xaafadaha magaalada Los Angeles. Wuxuu raadin jiray guryaha ay daaqadaha u furan yihiin ama aan albaabadu u xidhnayn. Dadka reer California markaas ma ayan aqoon in albaabada la xidho, waayo nabad ayay isku qabeen, balse nabaddaas waxaa soo afjaray ugaadhsadaha habeenkii. Bilowgii sannadkii 1985, dilalku waxay noqdeen kuwo isdaba joog ah oo aan kala joogsi lahayn. Richard wuxuu noqday dilaaga ugu khatarta badnaa, waayo ma jirin qof uu si gaar ah u beegsan jiray. Habeen wuxuu dili jiray nin dhalinyaro ah, habeenka xigana haweenay waayeel ah, habeenka kale carruur ayuu jirdili jiray. Tani waxay booliska magaalada ku riday jahwareer aad u weyn, waayo ma jirin wax nidaam ah oo dilaagu raacayay. Xaafadaha Los Angeles waxay galeen xaalad cabsi ah. Dadku waxay bilaabeen inay soo iibsadaan eyda waaweyn ee waardiyaha, hubka nooc kasta oo uu yahay, iyo in kasta oo kulayl weyni jiray, haddana qof kasta wuxuu xidhay daaqad kasta oo gurigiisa ku taal. Richard wuxuu ahaa hoos madow oo dhex socda magaalada, isagoo ku raaxaysanayay cabsida uu malaayiinta qof ku riday. Richard Ramirez wuxuu rumaysnaa inuu yahay adeegaha shaydaanka. Goob kasta oo uu dembiga ka galo, wuxuu kaga tegi jiray calaamad muujinaysa xiddigta shaydaanka, pentagram. Calaamadan wuxuu ku sawiri jiray darbiyada guriga isagoo isticmaalaya dhiigga dhibanayaasha, ama wuxuu ku xariiqi jiray jidhka dadka uu dilay. Mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu naxdinta badnaa waxay ahayd markii uu gurigooda ugu galay 2 haween ah, mid ka mid ahna uu ku khasbay inay u dhowrto shaydaanka ka hor intaanu dilin. Richard wuxuu rumaysnaa in shaydaanku uu siinayo awood uu ku noqdo mid aan la arki karin oo boolisku aysan marnaba qaban doonin. Habdhaqankiisu wuxuu ahaa mid ka baxsan bini'aadanimada, isagoo xataa xubnaha jidhka dadka uu dilo qaadan jiray, si uu ugu raaxaysto hadalhaynta booliska. In kasta oo Richard uu dilay dad badan, haddana waxaa jiray dhowr qof oo ka badbaaday gacantiisa naxariista darayd. Dadkaas badbaaday waxay booliska siiyeen tilmaamo ku saabsan muuqaalka dilaaga. Waxay ku sheegeen inuu yahay nin dheer, aad u dhuuban, leh timo madow oo qalafsan, iyo ilko qudhun leh oo aad u uraya. Waxa ugu naxdinta badnaa ee ay sheegeen waxay ahayd indhihiisa oo u muuqday kuwo aan naxariis lahayn iyo caraf qadhmuun oo ka imaanaysay jidhkiisa. Tilmaamahani waxay booliska ka caawiyeen inay sawiraan wejigiisa, balse Richard weli wuu sii socday isagoo geysanaya dambiyo kale. Magaalada San Francisco ayuu u gudbay, halkaas oo uu ku dilay oday waayeel ah, xaaskiisana ku dhaawacay, isagoo guriga gudihiisa ku dhex qoray calaamado kale oo dhiig leh. Warbaahinta ayaa markan u bixisay magaca ugaadhsadaha habeenkii, Night Stalker. Magacan wuxuu noqday mid cabsi weyn ku abuura qof kasta oo maqla. Ma jirin habeen ay dadku si nabad ah u seexdaan. Dowladda gobolka ayaa soo saartay digniino ku saabsan in qof kasta uu iska ilaaliyo cid kasta oo u eg sawirka boolisku baahiyey. Booliska Los Angeles waxay abuureen koox gaar ah oo habeen iyo maalin raadinaysa dilaaga,
balse Richard wuxuu u muuqday mid mar kasta hal tallaabo ka horreeya. Wuxuu isticmaali jiray baabuurta uu soo xado, isagoo dharka iska beddeli jiray, dil kasta kadib si aan loo aqoonsan. Balse xariifnimadiisu waxay ku dhowaatay inay dhammaato markii uu ka tagay hal raad oo yar oo aanu dareemin. Bishii Agoosto ee sannadkii 1985, boolisku waxay heleen baabuur uu Richard soo xaday oo uu kaga tagay meel cidlo ah. Markii ay khubaro dhinaca faraha ah baadheen baabuurka, waxay ka heleen hal far oo keliya, fingerprint, oo ku tiil muraayadda baabuurka. Xilligaas tiknoolajiyada faraha la baadho waxay ahayd mid ku cusub California. Markii fartaas la geliyey kombiyuutarka, waxaa soo baxay magaca Richard Ramirez, kaas oo hore loogu xidhay dembiyo yaryar oo xatooyo ah. Sawirkiisii dhabta ahaa ayaa lagu baahiyey dhammaan jaraa'idka, telefishinnada, iyo boorar waaweyn oo waddada hareeraheeda ah. Richard wakhtigaas ma uusan ogayn in sawirkiisu uu yaallo meel kasta, waayo wuxuu ku maqnaa safar uu ku tagay gobolka Texas. Habeennimadii bishii Agoosto 30-keedii, Richard wuxuu dib ugu soo laabtay Los Angeles isagoo ka soo degay bas ka yimid gobolka Texas. Markii uu soo galay dukaan yar si uu wax u iibsado, wuxuu arkay sawirkiisii oo yaalla bogga hore ee jaraa'idka oo dhan. Isagoo argagaxsan ayuu dukaankii ka cararay, balse dadkii dukaanka joogay ayaa aqoonsaday oo bilaabay inay ku qayliyaan waa isagii. Waa ugaadhsadaha habeenkii. Richard wuxuu bilaabay inuu cararo isagoo isku dayaya inuu xado baabuur kale si uu u baxsado, balse dadka xaafadda bari ee Los Angeles oo ahaa dad aad u cadhaysan ayaa eryaday. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay jidka, waxayna qabteen isagoo isku dayaya inuu gidaarka boodo. Dadkaas ayaa bilaabay inay si xun u garaacaan, waxaana badbaadiyey booliska oo goobta soo gaadhay. Haddii aysan boolisku imaan lahayn, dadkaas cadhaysan ayaa gacantooda ku dili lahaa. Maxkamadayntii Richard Ramirez waxay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu yaabka badnaa taariikhda Maraykanka. Richard ma uusan muujin wax qoomamo ah, balse wuxuu maxkamadda horteeda ku sameeyey calaamadda shaydaanka isagoo ku qayliyey, noolow shaydaan. Wuxuu xidhan jiray muraayado madow, isagoo u qosli jiray ehelada dadkii uu dilay. Waxa yaabka lahaa waxay ahayd in boqolaal gabdhood oo taageerayaal ah ay u soo qori jireen warqado jacayl ah isagoo xabsiga ku jira, qaarkoodna waxay iman jireen maxkamadda si ay u arkaan. Sannadkii 1989, waxaa lagu xukumay dhimasho kadib markii lagu helay dembi ah 13 dil, 5 iskuday dil iyo dembiyo kale oo fara badan. Richard wuxuu maxkamadda ku yidhi, geeridu waxay la socotaa dhulka, waxaan idiinku arki doonaa cadaabta. Richard Ramirez wuxuu ku qaatay in ka badan 20 sano xabsiga dhimashada ee San Quentin. In kasta oo lagu xukumay dhimasho, haddana weligii lama daldalin. Wuxuu ku dhex dhintay xabsiga sannadkii 2013 isagoo qaba xanuunka kansarka. Geeridiisu waxay soo afjartay cutub madow oo naxdin leh oo ka mid ah taariikhda gobolka California. Dadka badbaaday iyo ehelada dadkii uu dilay ayaa dareemay nafis, balse xanuunkii iyo cabsidii uu reebay marnaba ma ayan ka bixin maskaxdooda. Richard wuxuu weli ku jiraa diiwaanka dembiyada inuu ahaa mid ka mid ah dilaayaashii ugu naxariista darnaa, kaas oo tusaale u noqday in sharku uusan lahayn weji go'an, uuna ka soo bixi karo meesha ugu madow ee maskaxda bini'aadamka.